ان waxaa la yiraahaa marin mursal waxaanan ahaan jiray fanaanad Soomaaliyeed oo qaaliya maantaytana waxa ay noloshayda ku dambeysay inaan ahay qof Soomaaliya oo qaxootiya oo ku nool dalka Denmark waxaan jeclahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo wixii daawanayo dhanba aan halkaan uga jeediyo wadanka aan ka imid oo la yiraahdo Soomaaliya wuxuu ahaa wadan weyn oo qaaliya oo qani ah buu ahaa oo wax soo saarkiisa iyo dhinac walba quruxdiisu ay aad isku gudubiridan tahay waxa dhacday marka wadankayaga horta waxaan rabaa halkaan inaan horta horeetay kaga muujiyo markii uu quruxda badnaan jiray sidoo ahaa waxaan kaloo jeclahay inaan idin muujiyo waxa jirta dadkii aniga aan la noolaa oo fanaaniinta oo saaxiibaday ahaa waxay ahaayeen dadkaas fanaaniinta ah ugu yaraan 400 oo qof oo ka shaqeysa tiyaatarka nationale kulaha murtida madaalada dadkaas oo maantayta aan qaarkood lahaynin meel ay jiraan dhinteenan qaarna meel ay ku nool yihiin aan caawiyto la ogeyn anigu laakiin aan halkaan kaligay haatan soo galay horta iyakan ilaahay waxaan uga baryayaa maartay nolol fiican baan uga baryayaa iyo nabad qab ilaahay inuu siiyo ayaan u baryayaa maxaa la yiraahaa waxaan jecelahay halkaan inaan iyagana qarannimadoodii iyo quruxdoodii iyo sidii ahaan jireen sidii u noolaan jireen in halkaan iyagana masawirkoodii aan ka muujiyo ayaan jecelahay waxa jirto kale hees kale oo anigu maxaa la yiraahaa aan jecelahay maanta inaan halkaan ka qaado oo la yiraaha magaceeda Soomaali ceeb diida heestaas waxa soo curiyay miraheeda waxa soo curiyay Yuusuf Aadan baa soo curiyay muusikada sida iskugu dhacaysa codkeeduna waxa soo curiyay ninka la yiraahdo Cabdi Khadar Xasan Laari habka hadda la iskugu dubariday waxa sameeyay nin Danish ah oo la yiraahdo magaciisa Son la yiraahdo ayaa isku dubariday heestaas waxa weeye heestaas wax walba iyada taabanaysa wadankayaga ayayna ka sheekeynaysaa heestaas waxaan jeclahay inaad si fiican u daawataan haatanna inaan rabo heestaas inaan idin saaro ku soo dhawaada heestaas
Somali